xaaladda siyaasadeed ee dalka Turkiga, Ruushka iyo Syria oo ayaanba ahayd mid cakiran ayaa cirka isku sii shareertay. Dowladaha Turkiga iyo Ruushka ayaa isdhaafsaday hadallo diblomaasiyadeed oo aad u kulul kuwaas oo aan horay u dhexmarin. Hadallada ayaa yimid markii madaxweyne Erdogan uu ku hanjabay in uu weerarayo Syria si ayuu yiri loo soo afjaro howlgallada arxan darrada ah ee ciidamada Syria ay ka wadaan gobolka Idlib. Arrintan ayaa timid iyada oo hay-adaha gargaarka ee Syria ay soo saareen baaq degdeg ah oo ay ku soo jeedinayaan in la joojiyo xabadda. Gargaar degdeg ah oo caalami ahna la gaarsiiyo ku dhawaad 1 milyan oo qof oo ka cararaya dhibaatada ciidamada maamulka Bashar al-Assad ay ka wadaan gobolka Idlib. dowladda Turkiga oo taageerta kooxaha fallaagada ah ee ku sugan Idlib ayaa in muddo ahba kala hadlaysay Russia in xabadda la joojiyo iyadoo doonaysa in ay ka hortagto mowjado kale oo qaxooti ah oo dalkeeda soo wajaha kuwaas oo sii kordhinaya tirada 3 milyan iyo 700 kun oo qof oo ah qaxooti Syrian ah oo ku nool dalkeeda. madaxweynaha Turkiga waxa uu sheegay in hadaladii u dambeeyay ee dhexmaray Ankara iyo Moscow aysan ka soo bixin wax natiijo ah, sidaa daraadeedna ay laga maarmaan tahay in howlgal militari uu ka fuliyo gudaha Syria haddii ciidamada Damascus aysan isaga bixin gobolkaasi. dowladda Ruushka oo iyaduna taageerta Bashar al-Assad ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay hadalka Turkiga, waxaana sheegtay in weerar lagu qaado ciidamada Syria ay keenayso cawaaqib xun oo uga sii daraya arrimaha gobolka. hadallada ka soo yeeray labada madaxweyne ayaa u muuqda kuwa sii cakiraya arrimaha Syria oo siyaabo kala duwan u quseeya labada dal ee Turkiga iyo Ruushka, waana kuwa waji cusub u yeeli kara arrimaha gobolkaas.